qaar badan oo naga mid ah waxaa laga yaabaa in aad dareemno in nolosha ay gashay mar qaarkood hakad oo aan sameeynin wax isbedel iyo horumar ku aadan mustaqbalka iyo hamiga aan lahayn isla markaana aad dareemno in aan ku sugannahay xaalad boring ah markaas insha Allah videogan maanta waxaa ku soo qaadan doonaa tusaale yar iyo talo xataa waxaa ku dar doonaa sheeko yar oo ku soo qaadan doono sida looga gudbo haddii aad dareemto in aad gashay xaalad hakad ah ama in aad dareemto haddii aad ku sugan tahay in aad cagaha dhoobo kula jirto soo dhow magacayga waa cali maxamed isbaa cali baashi fadlan video hadduu kusoo gaaro asxan yar iyo samee asxaabtaada la wadaag kanaalkana ku xirnaa si videoyaal kale qiimo leh ay ku soo gaaraan sida kuwan oo kale waana mahadsantahay ka hor intaan gudagelin videogan maanta waxaa muhiim in aan isla fahamnaa marka hore maskaxda waa mid ka mid ah unugyada ugu muhiimsan jirkeena maskaxda bini'aadanka waa meesha laga soo curiyo ay ka soo burqadaan fikradaha wanaagsan iyo kuwa xunxun website-kan la magac baxay Healthy Brains wuxuu leeyahay you are your brain waxaad tahay maskaxdaada xaaladda ku sugan tahay maanta caafimaad iyo dareenkaada waxaa sabab u ah maskaxdaada maskaxda bini'aadanka waxaa lagu qiyaasay in maalinkii ay soo curiso 70,000 oo fikrado kala duwan website-kan kale ee la magac baxay Care Counseling asiga wuxuu leeyahay 80% kamid ah 70,000 waa fikrado xunxun 80% waxay u dhigmataa 56,000 oo fikrado xunxun ayaa maaragtay maalinkii ku soo mara 14,000 waa fikrado fiican okay isla website-kan wuxuu leeyahay 95% kamid ah fikradihii xumaa waa kuwa soo laabta 53,200 waa fikrado xunxun oo haddana soo laabta maalinkii oo dhan 95% kamid ah way soo laabtaan qaar kamidana waa laga tagaa laakiin inta badan fikradahaas xunxun way soo laabtaan oo maalinkii dhan way nagu soo laabtaan marka ujeedka ka leenahay ee fikradahaas iyo waxaas waa maskaxdeena waxa aan ku fikirno haddii aan maaragtay ku dhaganahay wali wixii na soo gaaray waa hore dhaawacii na soo gaaray wixii hore haddii aan maaragtay ka gudbin waxay la mid tahay adigoo maaragtay dhaawacii hore iska daaweyn oo ku socdo sidiisa dhaawac hore haddii aan la daaweyn marka waxaa ogsoonataa in aad diyaar u noqoto dhiigbax joogta inta noloshaada ka dhimo marka sidaas darteed waxaa markasta fiican haddii aad dareemto in aad noloshaada meeshii ku dhigan tahay sanado badan meeshii aad joogtay haddii aad weli taagan tahay waxay u badan tahay wixii hore ayaa maaragtay weli ku dhigannahay si aan maaragtay u sii dayno waa in aan markaas iska ilownaa ama aad daaweynaa dhaawacyadii hore in aad maaragtay sabarto ama aad cafiso wixii hore adiga ee maaragtay daawo ku tahay iyo qof kaleba sheekeer maaragtay hadda ka hor waxay dhex martay labo maaragtay buddhist kuwan oo diimahan buddhismaha haysto oo marooyinka xirtaan oo madax xiran hadda ka hor laba soo raacay mid imaam iyo mid qaadimkiisa soo raaceen oo buddhistiyaal safar dheer ay ku jireen markaas safarkoodii marka waxay la kulmeen meel webi ee goyn rabay markaas webiga waxaa taagnaa gabar markaas in ayadana goyso rabta marka way fiiriyeen gabadhi way goyn laadahay way ka cabsanaysaa meesha midkii imaamka ahaa oo labadood hogaaminaya markaas gabadhii intoo qaaday oo garab ka saartay ayakana buddhistiyaasha mu dhawaadaan haweenka iyo dumarka ma taabtaan midkii imaamka la booday gabadha garabkoo saartay webiga dhinaciisa kala istaajiyey kii qaadimka wuu yaaban yahay marka afkaa kala tagay ninkii imaamka ahaa dhan aa ku dayin jirtay maanta gabar oo qaaday way baxeen webiga dhinac kale tageen kadib way safarkooda galeen markii meeshii la tagay maalmo kadib ninkii qaadimka wuxuu weydiiyey shiiqow ama waxay isugu wacan ayaga og laakiin kii oo maaragtay hogaaminaya wuxuu weydiiyey waxaa weli la yaabanahay gabadhii aa maanta taabatay jirkeeda iska dhaafi waaba qaadayba wuxuu dhahay kii oo imaamku ahaa ama kii hogaaminaya wuxuu dhahay war adiga gabadha webiga geeskiida soo dhigee maxaa nooga daba wadaa gabadha marka hadda videogan ujeedada usoo qato waxay tahay qaar badan oo naga mid ah waxaa laga yaabaa in aad dareemayno in aad nolosheena ku sugannahay xaalad hakad inay gashay oo aan hor u socon sababtoo ah waxaa ku dhaganahay weli wixii tagay oo maaragtay la soo dhaafay suuragalna ma aha in aan maaragtay la tartamno dadka maaragtay horumaray haddii aan maanta dhabarka ee ku saaran yihiin boorso ee dhagaxa ka buuxaan oo wixii tagay iyo xumaan iyo wax kasta oo lagu soo dhahay haddii ay dhabar ku saaran yihiin way adag tahay in aad fuusho buurtii guusha nolosha marka waxaa muhiim ama fiican lisku waaniyaa in aad iska dhigto culeyskii hore inta aad dhigi kartaba in aad iska yareyso oo aad iska cafiso wixii kaa tagay oo qaladaad lagu gaarsiiyey adiga ay markaas daawo ku tahay inta badan runaantii anigana way caawisaa markastaa dareemo in aan nolosha istaag ay gasho ama iga istaagto waxaa ku laabtaa maxaa qaldan maxaa fikirkayga inta badan muxuu u badan yahay marka ogaado in ay wax tagay yihiin oo waxba laga qaban karin marka waxaa isku dayaa in iska iloobo
dadka dayihiin iska cafiyo noloshan markaas hore ugu socdo okay videogan maanta intaas ay ku soo koobeen insha Allah hadii aad leedahay videogan waa muhiim fadlan nagu taageer asxaabta gaarsii haylowin inaad like saarto kanaalkan subscribe aad noqoto waan maasantahay waxaan u ballan insha Allah video kale